waxaa nasiib darro ah oo Soonya nasiib darro u aragtaa in la siyaasadeeyo aafada tahriibka oo aafo inaga xoog weyn in la marmariyo institution aan dawli ahayn aan dawladda aan ka helin miisaaniyad inay Soonya marmariyaan ay yiraahdaan Soonya maxay aafada tahriibka uga qaban weyday aafada tahriibku way inaga xoog weyn tahay dhammaan qarankeena shacbigeena collective responsibility baa inaga rabaa intaan isku nimaadno inaan fadhiisano shirka aan ku baaqnayna aan rajaynayno 18 May after marka xuska 18 May naga dhamaado insha Allah inuu inoo hirgeli doono dalada Soonya weligeed ma helin haddana ma hesho umana qorshaysna inay hesho dakhliga guud ee bulshada ee dawladdu gacanta ku hayso ama cashuurta dawladeed Soonya waxay sidoo kale shaqo abuur iyo ganacsiyo yaryar u samaysay boqolaal dhalinyaro ah oo runtii ku kala teedsan dalkoo dhan iyadoo la soo jeediyay in loo baahan yahay in 30 mashruuc in ka badan dhalinyarada Soomaaliland loo fuliyo si looga baaqsado dhibaatooyinka kala duwan ee dhalinyarada soo wajaha sidoo kale dalada Soonya waxay haatan wadaa mashaariic badan oo kala duwan waxa kamid ah mashruuca degmada Burco ka socda oo in ka badan 850 dhalinyaro ay ka faa'iideysteen sidoo kale u dagaalano aan u istaagno in la xakameeyo tahriib in shaqo loo abuuro in qarankeena oo dhan inaga isku duuban haddaad wadaniintiin qayb ka noqdo dadaalkan wadna qayb nagala noqdo Soonya ma laha awood ay ku joojiso dhalinyarada maalin walba soconaysa tahriibisa marka waxa weeyaan dhibaatooyinka jira iyadoo oo laga cararayo in mas'uuliyadda la xambaaro in lagu soo riixo saaxiibka Yaasiin baa ka hadlay xildhibaan Birq xildhibaankaas waxaanu sanadkii hore iskaga hornimay isagoo aan organization lahayn ayuu Burco nagula kulmay wuxuu nagula gar dhigtay oo noogu hanjabay mashruucan aniga halaysi waxaan ku nidhi mashruucan daladan 450 urur baa ku bahoobay oo iska leh waxaan ku nidhi adigu xildhibaan baa tahay xaq noogu ma lihi wuxuu nagu yiri aniga xarun leh caruurtaan ku tarbiyaday waxaan ku nidhi waad ku maadsan tahay oo waajibaad qarankaaga u qabanayso dadkii dalkan intay wax ku barteen aaminay kalsooni ku helay ayaa wax in barar badan xilalka qaran looga doorbiday dad ajaaniba dhalinyarada mushkiladda haystay shaqaaleeyadu ma aha mid ay Soonya ka saari karto baaqii madaxweynaha ay ahaa in la abuuro sanduuqa dhalinyarada Somaliland laakiinse wali alaan sanduuqii madaxweynuhu ku dhawaaqay muu hawlgelin hal shilna kuma soo dhicin baaqii madaxweynaha in xukuumaddu dhaqan gelisaa fiican wasiirada koo shaqeeya ay yiraahdaan wixii madaxweynuhu ku baaqay weyn hirgelina laakiinse marka la wasiir hebel baa diiday dad milis waxa noqonaysaa in wasiirka iyo madaxweynuhu aanay isku qowl noqonin